ma jirto cid adkaatay oo waxay rabto sameey karto mana jirto cid laga adkaado oo wixii rab lagu sameey karo ma jirto maxkamaddu ama sharciguba ma yaqaano mana tixgeliyo kan waa muxaafid kan waa mucaarad ma yaqaanaba kan waa reer hebel kan waa ina hebelna ma yaqaan qof xiri kara ma jiro oo aan ahayn booliiska maanta waxaan u maleynaa taliyaha kaliya nala jooga booliiskan gaar u hadlin ciidamada ilaa ciidanka deegaanka kulli gaargaaran u kulanna macnaha waxaana laga hadlaayay magaalada iyo amnigeeda aan laga hadlaayay marka wixii ka soo baxay arintaas yaan rabnaa hal eray inaan ka dhaxno kaliya waxaan rabaa dhammaan ciidamada jooga magaalada ama heer federaal ha ahaadaano ama heer state ha ahaadaano ama ha ahaadaano ciidanka deegaanka oo raggan meesha fadhiya ay ka mid yihiin waxaan rabnaa inay ogaadaan marka hore sharciga waa loo siman yahay sharciga waa loo siman yahay waxaan rabnaa inay ogaadaan ma jirto cid adkaatay oo waxay rabto sameey karto mana jirto cid laga adkaado oo wixii rab lagu sameey karo ma jirto arintaas aad ay muhiim u tahay ciidamada aad xukuntaan iyo saraakiisha laftigeedaba waxaa la rabaa marna inayna ka qayb qaadanin kicin iyo qalalaaso aargudsi beegsi iyo wax kasta oo dhibaayo amniga magaalada dhibaayo inaysan ka qayb qaadanin la rabaa oo ay ka digtoonaadaan askarta waxaa la rabaa inaad ku ilaalisaan inay ku ekaadaan goobaha loogu talagalay oo loo cayimay oo loo asteeyay halkaas joog ninka la yiraahdo bartaas inuu joogaa laga rabaa askarta ama dadka hubaysan ee magaalada jooga waxaan rabnaa inay ku ekaadaan meesha loo asteeyay loo calaameeyay inay ku ekaadaan waxaan rabnaa inay ka fogaadaan wax kasta oo keenayo inay ka qayb noqdaan faldambiyad inay ka qayb noqdaan inay ka fogaadaan la rabaa dambigu waa mid shakhsi ah qofka loo haystaa sameeya dambigu waa shakhsi qof intuu dambi sameeyo hadduu kugu soo cararo oo agtaada yimaado ha difaacin ee adiga dambi kala gelin dambigu waa shakhsi qofkii gala oo kaliya ku egyahay macnaha qofkaasaa laga xisaabinaa asagaa loo ciqaabaa wuxuu sameeyey asagaa lagula xisaabtamaa qof ka difaaci karana male qof ka badbaadi karana male asagaa loo ciqaabaa lagu xisaabinaa qolada uu yahay qofka iyo cidda uu taageersan yahay marna uma ogolaanayaan amba fursad xaq uma siinayaan inuu dambi sameeyo xaq ma sii karaan dambigu waa dambi shakhsi ah ciqaabtuna ciqaab shakhsiya waa maxkamaddu ama sharciguba ma yaqaano mana tixgeliyo kan waa muxaafid kan waa mucaarad ma yaqaanaba kan waa reer hebel kan waa ina hebelna ma yaqaano wuxuu yaqaanaa sharcigu hal shay wuxuu yaqaanaa dambiyaa dhacay qofkana lagu cadeeyo galan waa yaqaanaa go'aanku muxuu noqonaa markii qofkii lagu cadeeyay dambiga oo galay ayaa ciqaabti oo mutalamarsiina sidaas daraadeed ha ku kadsoomina yaana lagu kadsoomin dhalinyaradana ha loo sheego hana ku sirmina dambi uu galay qofku inuu cidda uu yahay ama cidda uu taageersan yahay ay ka badbaadinayso ha ku kadsoomina yaan lagu sirmin arintaasi waxaan rabnaa fariintaasi in nagala gaarsiiyo askarta hubaysan ee magaalada ku jirto haddii ciidan tahay iyo haddii dadka deegaanka oo qoryo qaatay ay yihiin maalmahan dhanba kulamadii socdi go'aana ka soo baxay go'aanada ka soo baxay waxaa waaye koox kasta meelaa loo asteeyey inay tagaan meeshii inay waxa ugu dambeeyay dadka deegaanka oo halkan fadhiyo hogaamiyaasha deegaanka ugu dambeeyay ciidamada dhammaan amaraa la siiyey eega koox kasta meeshii la geeyey waxaa la rabaa qofka mas-uulka ah inuu mas-uuliyadda qaato oo inta wado uu geeyaa la rabaa taliyaashu way sheegeen dadka aan ciidamada ahayn sida fursad loogu abuurayo waxaa ka hadla taliyaasha fursaddii si loogu abuuro waa inay nidaamka raacaan oo meeshii loo asteeyey ay tagaan oo aysan ka soo dhaqaaqin haddii uu ka soo dhaqaaqo qofka uu qalad magaalada ka sameeyana qofka uu hoos tago waxaa la rabaa war hebelaa qod soo sameeyey markii la dhaho ama uu ogaado inuu daf inta soo siiyo magaalada dadkaana dhan iyo qof kastoo muwaadin oo magaalada jooga amniga waxaa ka saaran oo mas-uul ka yahay mas-uuliyadda ugu sarreyso yaa cid xiri kara yaana cid baari kara nimankan booliiska ha sameey kara intaas ciidamada xoogga oo magaalada amnigeeda adag haya iyo dhammaan ciidanka nabad sugidda iyo dhammaan ciidamada kale deegaanka qofkii la qabtaa qof xiri kara ma jiro oo aan ahayn booliiska lagu wareejiyo taliyaha qaybta joogo oo gobolka taliyaha qaybta kale guud oo state-ka joogo ayaga u xil saaran arintaasi qof markii la xiraayo ha loo geeyo booliiska loo geeyo habraaca sharciga iyo nidaamka ayaga mas'uulka ah mas'uuliyadda amniga dhamaanteen way saarantaa habraaca transitionka iyo habka sida ay processka ay kula wareegi lahayn howlahan waa asigana uu sheegay taliyaha gobolka way bilaabanay tartiib loola wareega ciidanka waxaan rabnaa inay magaalada dham ka baxaan wax kasto halkan markii la marayo lagu heshiiyeen sanka hoobsi ma oo ma la dhahayo
inta inuu qof kasta inta qaato anaa liigu ogyahay intaas dadka dhan inta ka baxo wixii ka soo noqda asaa loo haystaa macnaha go'aanada aad gaaraysaan oo laga sheekeynayo oo sida loo kala qaadaa mas-uuliyaadka ah qofka mas-uuliyaddu qaatay inuu kasoo dhalaala la rabaa hadduu kasoo dhalaala nidaamkiisa iyo waajibkiisu maraa farintaas dadka dham oo askarta bannaanka jirta la gaarsiiyey aada u mahadsantiin